intaas kadib waxaan kelimo yar siinaynaa insha allahu tacaala nin odayo oo noo yimid oo na soo gaaro duyuufta qayb kamida oo adiiba oo shaacira oo sheekh cabdirashiid ustaad cabdirashiid cumar la yiraahdo marka soo dhawaayo bal adabka iyo maaragta la hilmaamo wax badan oo aan ka oomanahay 20 iyo dhowr sano ka badan inuu qac nooga siino warjeynina insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقولنا هرتا وان إذن سلامي لما أنتين سيجارة هنا سلامة يا علماء أن مقعيق وحوير نكم حالي عبد الرشيد عمر لكن مقع كنت كواجرة إنا عوس قرو gurowgaas waxaa reewaamaan ahay reer koonfur bar marka kolley wadaadadii ba hadlay waxba ay noo hambeeyeen oo hadda laga hadlana ma laha macnaha mawduuca suu ahaa ayay oga hadleen marka aniga waxaan jeclaan lahaa marka hore waxaan waday gabay caadi ah oo tacliin waa tariig iyo aftiin lagu tanaadaaye ilaa halkaa u socda gow ah laakiin hadda waxaan rabaa inaan ka soo laabto oon u yara laabta dhan aan su'aalo madaxa macnaha wixii waa laga hadlay macnaha imtixaankii macnaha waxaan sheegi rabayba waa marka inay wax macnaha su'aalo madaxiina hadhow ilaa hadhow ku hara bal inaan ku abuuran isku dayay maansa kale u laabanaya saar waxaan reebaa maanahay waa abtirsaday mugtahay marka saaran u laabanaya waxaan rabaa horta hal qiso yaran rabaa inaan ka hormariyo meeshan annaga markaad carabta soo aadaan wax ka soo barataan aad hanweynin badan baad nooga soo tagtaan macnaha qofka wadaad baan u ar annaga hadduu mar carabi ku hadlo khalas waa sheekh wadaad ah macnaha marka waxaan rabnaa inuu masaajidka nahor mara shaqo kalena arrimaha kalena naga hogaamiyo marka mar dhaxdaa waxaa dhacday magaalada Gaaris nin jaamaca islaamiya ka soo baxay jaamaca caalam alcarabi ka soo baxay ayaa wuxuu bilaabay madrasa yar gabdha yaryar wuxuu u bilaabay in maamooyin wuxuu u bilaabay inuu baro sirada nabiga محمود أو معناها شقاءات وملكسنا هاد لكن ويرى ضدك سيدي وحاجة الشاكة السعودية مالنت دمركو سيرة النبي قول براي أو بعدين المجال جارس خير كده ولا قرنا سما خيرها أنا كحشون معها وحي قاعد النبي إنه أهين وقاعدين هرت مركور وين هوين بمعناها خير كوكيين بيجرني لكن مركو وش جاي أو أبتركي وكسب بالله راجي واحد فاهمين نقدين قبلي واحد فاهمين نقدين أيوة حال على الطريقة ذا مري قاله هو رسول الله إلى الناس كافة كو هسه معنا صلى الله عليه وسلم مركا أرنت مركا عادي معلومة كدي شيخي حاجة ويرد الدكتور محي أرضي ده كو جابي مقتهي وحقول له إيه ما هذي القي النجاسة شكرا وحسعتي دوت كسعتي شيخ ناصر الدين الألباني الله ونحرسته ما تجمع نجاسة مس نجاسة معها تي ولا تجي أصله درسي كبوجي إن بوتي كتوري ما نتي دم واكر الدرر واكر يعين وحيد الشيخ وابا وحكر وطابة مركب مدة إذا وحاول حكي ما ده هذا اللي رومانسا إنه وش يجرى مشان يلان يلحل يرترب مرء يعدل حلقو يقين دول شيغانو أقونيهن بانيري هدو ولي يورورو يلبان سوق لغا مقلا يابي اما كاكهري يهلغو هارامه يكون يهوبان كيري معناها سوماليدا خليgeeda uma taqaaneed dabeel laba dabeel kala jirta roob kortiisa mid waxa jira waxa la yiraahdaa yaalan yalxo roobkay ka dambaysa midna waa yal oo roobkay calaamad u tahay marka nin aqoonyahan ah oo caalam kale wax ka soo bartay oo aan gadaal u noqon markuu xagga ku noqdo xididada ma yeelan dhulkii ma gelin gadaal uma laaban wixiisa ma ogaan marka yalan roob yaltiba timid way mooday roobkii baa macnaha daay waa dhamaaday yalan yalxadii dhamaatay asaga wili uu fadhiya yaltii sugaya marka maxaan iri hadana yicris caws iyo tigaad yaxniga saaran subax yaqiin duul sheegano aqoonyahan baana yiri haduu yoomo yira waa show roob saaka yimi yaabi ama ka hiray yah lagu haaraamay kun yahuban ka yiri macnaha yalan baan naqaana dhadada
dhada daaday ninkii suuxi saaka roob da ay u maleeyay aqoonyahan aan ku aragnay ayagana macnaha wuxuu ka hadli karaa wuxuu ka hadli karaa riyaad iyo agagaarkeeda hawada say tahay inta dabeeloo marta maxaa yeelay muqarar ku bartay laakiin ka dambaba wax kale ma fiirin tiisa ma ogaan marka waxaa dhici inuu dhib keena marka dhibku keeni waxay tahay adiga markuu kula khitaabaya ninka waa Soomaali af Soomaali kugula hadli laakiin waa nin carab ahba carab madow waay macnaha marka taa iida ah kulli hadda aqoon macnaha dad mutacalimiin aqoonyahan intiisi waa tihiin marka midda iida iska daweyna ikhwaani macnaha iska tuu laga dawo oo laga baxaa noqoto maxaa yeelay markii ummadda aad la hadlaysa ay nafteeda aad waxay tahay ogeen ummadda nafteeda macnaha dabeecadeeda iyo waxay tahay aad ogeen waxaad noqon marka inaad keenta haddaan laba kale inagu sii daro yaxaas uu oon qabto intuu webi yaac ka tegay duwaag duur yaabis tuban yabo biyo oo la tegay yaadado iwaraabi yiri yaab iyo ama kaa ka firay yah lagu haraamay iyo kun yahuud waan keeri yaadado waa taqaan waa kashitada yaxaas intuu webi ka baxay oon haaya oonkii webi uu kala baxay kashito oo duur joogta la aaday iidan waa aragnay sheekh hadda carab ku dhuftay wuxuu ka hadlay dad wax soo bartay oo qabiilkii uu hogaaminayo macnaha adiga ka war shaarici ku hogaaminaya shaarici ku wada adiga miya shaarici hogaaminaya shaarici ku wada maxaa lihi sheekh tanin tolkiisa kama weyna iyo gidi 4 saac sheeka noocaas had gali markaas waxaa tahay waxa la mid tahay yaxaaskii weydiistay maaragtay haye yagleel ood laga dhigto oo deer laga yeeshayo yal iyo leer yay marin dugaal ii yeelay yiri macnaha deer baad hagaajistay waad dhisatay waxaad u dhisatay inaad leer ka dugsato asagii waa wuxuu ku leeyahay war deer kale ii yeer leertii ay u dhacday iidana waa aqoonyahankan marka taa iida haddaan ka baxna oo wax macnaha hataa inay aad u badnaadaan maha cilmiga laakiin wax yar ood haysata aad dadkaadii fahanta ummadaadi haddaad fahanta waa khalaas waxaa waaye waxay noqoni faa'iido yeelan laakiin hadday noqoto adiga cilmi caalam alcarabiya haysta laakiin aad fikirta ma rabtid ama caalam kalaad kala timid macnaha meeshaadiiba inaad ku dabaqda ma rabtid cilmiga inaad meesha dhulkaadi geliso ma rabtid xitaa waan haysanaa dhibaato waan ka qabnaa nin wadaad ah oo wax soo bartay markuu meesha noogu imaada wuxuu ka hadlayaa tawxiid raba inuu ka hadlo markaasuu ku leeyahay macaanida laa ilaaha ila allah macaanida marka asaga tan carabiga ka wadaa maamada tan Soomaalida maxay u fahmi duqda maamada dhageysanaysa maxay u fahmi macaani u fahmi macaanida iyo muqtadayaadka iyo maaragtay arrimo carabi ku hadla laakiin ku Soomaaliyayna un ha macnaha markii ninka carabi ku af Soomaali u macnaha eray carabi ah oo siiqa af Soomaali u yeelay ama ku hadlay dadka waxba ma faa'iideen marka taa idinaan ka waantono oo maaragtay dad marka xagga ku noqono aan noqono umad dadkii la hadli kara assalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan yahay ustaad Umar abwaankaas ina caws gurow aad iyo aad u mahadsan yahay runtii oo boorka naga jafay wax badan in dareensiiyay waa muhiim jiddan runtii wadankan ku noosha haddaan na garanay ilaa asagaa beeranay asagaa ku socane waa wareer luqadahaas wax badan la isku khalday oo macno kale loo qaatana way jiraan marka waxay ila tahay in abwaanin dib loo abaabulo in la aruuriyo aday jiraana la saacido